madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa kulankii labaad maanta qasriga madaxtooyada kula qaatay gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka u xidiya wadan injineer Faysal Cali Xuseen iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro markii kulankaasi soo idlaaday oo warbaahintu dibad joog ka ahayd waxa warfidyeenada la hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaana hadaladoodii kamid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إلى مهله سيد الله سعتين أو مدرس وما الله سعتين دمانتد وحمان تقبصوا من كلن كل بعض السدح القدومي حسبي يعني بوجوجها مثل كحيان هان أيسكوي مادين يضلوا لفجوري عمل جوه هذي سيد دور شوين كسومالان runtii dib u dhac badan naga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiin ah oo Soomaaliland ay saxil qaameen iyaguna dhankooda saxil qaameen isla markaana soo jeediyeen go'aamo soo jeediyeen sidii hawsha hor loogu sii dhaqaajin lahaa in doorashadii sida ugu dhaqsaha badan lagu suurtagalsan inuu qabsoonto sida madaxweynuhu shalayba uu kaga dhawaaqay khudbadii uu ka jeediyay carwadii warshadleyda Soomaaliland waxaan maantana mar labaad oo balantii labaad ahayd markaan isku noqonay aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cunsiin lahaa hawshaas mid dhalow noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bisha dambe 10keeda ah aan ka baaran degno oo hawsha dhameystirkeeda sidii loo dhameystir lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeenu loo fulin lahaa ayaan ku waansanay ilaa bisha 10keeda hawsha inta ka horeysa insha Allah laga guro maartay xarkaha laga guro qodaha laga guro labada gudoomiye oo nala qaateen runtii taasna dadku u baaqayna waxaan naga sida shalay madaxweynuhu horti shacabka horti farinta ugu diray waxa naga go'an in dhamaantayo in wixii hore dhacay uu dhacay wixii dib u dhacayo soo dhacay uu dhacay laakiin in maanta laga bilaabo aanu diyaar garowno si doorashada dalka u qabsoomi lahayd oo ah takaliya ee maanta Soomaaliland ay ku badbaadiso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساكور قبتين waxaan maanta yeelanay kulankii labaad labada gudoomiye xisbi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku si aan hore ugu sii wadno sidii doorashaduna u qabsoomi lahayd soo jeedintii odayaashana loo dhaqan gelin lahaa markaanu aragnay hawsha culeyskeeda waxaanu isla garanay inay u baahan tahay waqti hawsha lagu fuliyo si qodobadii loo fuliyo marka waxaan isla qaadanay in ilaa bisha 10keeda January 10keeda hawshaas la siiyo waqti xukuumadda iyo xisbigeeda iyo madaxweynaha marka waqtiga ay u baahan tahay waan la qaadanay ilaa bisha 10keeda in hawsha la guda galo la soo ururiyo la soo afjaro insha Allah marka waxaan u sheegaynaa ummadda iyo shacbiga reer Soomaaliland iyo cidda danaynaysa arrimaha doorashada Soomaaliland in bisha 10keeda insha Allah aan filayno war ummadda iyo shacbiga ka farxiya inoona horseeda in doorashooyinkii inoo qabsoomaan qodobadana insha Allah ay sidii loo fulin lahaa ay noqoto maalin aynu ku baaqno haddii Ilaahay ka dhigo. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. وعويل عبد الرحيم كيسا عويل برعاوي قصري مدحتوية جمهورية الصومالي لان فيها واسم مقالة هرقيسا